مبدئيا أن نسكت ديتنين مبدأ kala goynta ummadda Soomaaliya calankeedu meesha uu ka taagan yahay inaan ku noolaado yaan diidanaa isla markaana in aan sidii looga badbaadin lahaa dalkan kala goynta iyo ilaahay hadduu ku roon in la dhaawaco qarannimadiisa iyo midnimadiisa adigoo ku dhex nool kama shaqayn karaysid waa inaad bannaanka kaga timaadaa oo beddeshaa haddii kale waad ku dhex milmaysaa taasaan marka in aan la qabsado inay caadi tahay in la yiraahdo magaalo uu ka taliyo maamul ummadda Soomaaliyeed baan kala goynaya aamusku wuxuu la mid yahay iyo inaad ku dhex noolaato wixii qaldanaa wuxuu la mid yahay ogolaansho iyo raalli ahaansho taana in dadkaygu ay sidaa u arkaan ama ummadda Soomaaliyeed sidaa u aragto ayaan diidanaa saasaan uga maqnaa hase yeeshee 60 kilomitir meel u jirta yaan ku noolaa ilaa iyo maalintii systemkaasi uu meesha yimidna waxaan ku jiray sidii loo samayn lahaa system bedela oo SSC baanu samaynay 2009 oo waxaanu samaynay 2012 kii khaatumo SSC khaatumo ilaa hadduu ku roon yahay waxaan u maqnayn sidii maamulkan ka hortaga oo ilaa hadduu ku roon yahay Soomaalinimadii huwan aaminsan ku shaqaynaya badbaadinaya qarannimadii Soomaaliyeed maanta inoo suura gashay ilaahay mahadiya ka gaadho waka ما شاء الله أدب ما سنتهاي وحان ربا ما وقتهاي أريمه وحاجة dhaqankii shacabkii iyo siyaasadii ma ogtahay marmar markay burbur uu dhacay wixii oo dhan dadkii oo dhan culumadii kulli ma ogtahay waxa la noqday ama dhinacna siyaasiyiin baa la noqday dhinacna dhaqan baa la wada noqday marka aad u mahadsantahay jawaabtaada waxaan rabaa marka su'aal kale inaan ku weydiiyo ku aadan waa dhaweyd wafdi ka socday dhaqan ah iyo madax ah ayaa waxay ka socday laascaanood ayaa waxay aadeen muqdisho oo la kulmeen maxaa la yiraahdaa dawladda federaalka Soomaaliya wafdi kalena waxay aadeen Nairobi waxaana aragnay beesha caalamka inay baaqi badan ay soo dirtay oo dabcan waxa ka muuqata xiriir inuu jiro dhinaciina iyo dhinaca beesha caalamka oo ay leeyihiin meeshan laascaanood waxa ka dhacay human right violation oo dadka xuquuqdoodii shacab baa la laayay marka intaasoo dhaqdhaqaaq siyaasadeed waan aragnaa oo culimada ay qabanayaan dhaqanka ay qabanayaan siyaasiyiin ay qabanayaan wadooyinka la wada saaran yahay maxaa marka warbixina naga siin kartaa safaradan hadda labada caasimood iyo beesha caalamka iyo xiriirkiina maxaad warbixin nooga siin kartaa oo idin hagaagay safaradii markii la bilaabay ilaa maanta ma horusocod baa la sameeyay hawsha meesheeda miyay taagan tahay siyaasiyan bal wax abdiila ma naga siin kartaa guuleedo khayr Allah ku siiyo waa arrin wanaagsan safarka magaalada Muqdisho xarunta Jamhuuriyadda Soomaaliyeed wuxuu ahaa casuumad rasmiya oo ka timid madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo uu u soo fidiyay golaha sare ee dhaqanka Khaatumo casuumadda ka jawaabisteedii waxaan u diray 5 xubnood oo golaha sare ee dhaqanka ka mid ah Garaajaan Garaa Ismaaciil Garaa Cabsaan Garaa Soofe Suldaan Mustafa Saciid Awseed ugaas Maxamuud ugaas Cabdullaahi Ciise Nuur Garaa Cabdisalaam Xasan Maxamed ilaahay hadduu ku roon yahay kulankaas iyo safarkaasi wuxuu ahaa martiqaad dawladda federaalka Soomaaliya ka yimid oo rasmiya waxaana laga wada hadlayay dadka reer SSC Khaatumo mowqifkooda iyo sidii loo wada shaqayn lahaa iyo dawladda Soomaaliya maadaama dadkani ay gacanta ku hayaan arrintii midaynta iyo badbaadada midnimada iyo qarannimada Soomaaliyeed oo dawladdu u xilsaarayd in madaxweynuhuna uga hambaliyeeyo hawsha ay dadkan reer SSC qabteen iyo in uu sidii u garab istaagi lahaa dadka reer SSC Khaatumo calankii isaga loo dhaariyay hoos harsanaya ilaahay hadduu ku roon yahay ka mid ah dadka uu taliyay madaxweynaha u yahay iyo sidii uu nabad uga dhex dhalin lahaa iyaga iyo maamulka kale ee Somaliland isna sidoo kale ku dhex nool Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya
nabad ugu soo dabaali lahaa u dhexdhexaadin lahaa u soo dhaweyn lahaa xaajada arrintaasina safarkaasina guul buu ku soo dhammaaday guul iyo is-afgarad buu ku soo dhammaaday in dadkan xaqooda iyo doonistooda aynan cidina is-hortaagi karin in midnimada Soomaaliya iyo jiritaankeedu uu muqaddas yahay intaba raantii safar guuleed yuu ahaa garaad Mukhtaar garaad Cali iyo anigu halkan iyo xubno ka mid ah gudoomiyihii guddiga 33ka ilaahay hadduu ku roon yahay golihii SSC 33kii SSC gudoomiyahoodii iyo xubno kale baanu afayeenkii SSC 33ka baanu safar halkan isku soo raacnay safarkaas wuxuu daaraa hadeer waxaad aragtaa beesha caalamka waxa xarun u ah maadaama in amnigii wadanku uusan aad u sugnayn waxa caasimada dawladda Kenya ee Nairobi intii aanu aragnay waxaanu gudbinaynay fariintii aanu ka sidnay dadka reer SSC Khaatumo waxaanu sheegaynay mowqifkooda iyo bahalkooda waxaanu sheegaynay oo la kulmaynay baahiyahooda caawa 8:00 fiidnimo waxaanu la kulmaynaa Islamic Relief ninka u fadhiya magaalada East u qaabilsan East Africa marka raantii safarkanina ma sha Allah si wacan buu u socdaa waxaan rajaynaynaa in guulo badan ay ka soo hoyan doonaan hadii ay ما شاء الله مرك هذا وحدنا تصتي خلرات كي سياسيين تسمين هذا دقن كإنه صحيو مرك أدنى وما سنتي سؤال بان ربينا كهوي ديو دولة الصومالي أرجع جارة أي صومك عوضي أو سكودي إن للسماء ولا هذا الكنحية سوماليلاند SSC خاتمه دولة إثيوبيا وإسكودي قف إن مقعوضه ويماذا وهرنا وحن حسوسنا دولة جيبوتي إن أي dhaqdhaqaaqay isku dayday maxaa dagaaladani wali way socdaan adigana hadda Nairobi ay joogtaa UN ta la kulmaysa dagaalada way socdaan wali maxaa qorshe ah oo idin diyaarsan oo dagaaladan lagu joojiyo qorshe siyaasadeed waxaan weeyaan maadaama siyaasadda la wareegteen guuleedo hana sixida ergeyga madaxweynuhu magacaabay Cabdikariin Xuseen Guuleed isagu cidda uu wada hadalka loo xil saaray waa Somaliland iyo Soomaaliya annaga haddaanu SSC Khaatumo kama mid nihin madaxweynuhu wuxuu u xil saaray odayaal dhaqameed isku jira odayaal guddigii 135 u badan bari aan gudoomiye u ahaa 2012kii odayaashii 135 ahaa odayaashii aanu guddiga fulinta ku wada jiray odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ka mid ah ugaas Maxamuud Cali ugaas Cabdille Suldaan Warsame Suldaan Caliyow Suldaan Ibrow iyo rag ka mid ah ugaas Xasan marka adigu hawshaas iyo hawshii dawladda Itoobiya iyo isku day kasta oo la damcay in xal loogu gaaro dhibaatada ka jirta iyo duulaanka iyo dagaalka ka socda Laascaanood waxay ka suuragali weyday maamulka Somaliland ta u horeysa xabad joojintu ay ku sugmi lahayna iyaga diiday garaado halka aan su'aal ka weydiiyo waxaa tiri wada hadallada waxay u dhici waayeen Somaliland dhinaceeda ayaga ka gaabisay idinku wada hadal diyaar ma u tihiin oo bilaa shuruud ah laakiin mise waxaad haysataan shuruudo intuusan wada hadal dhicin waan soo waday guuleedo wada hadal wuxuu yimaadaa iyadoo xabad dhacaysa lama wada hadlo wada hadalka waxaa ka horeeya in sida ay UN tuba sheegtay waa in ceasefire la sameeyaa waa in xabad joojin ay timaadaa xabad joojintu waxay ku sugmaysaa in separation of armies in ciidamada la kala qaado oo meelo ayan iska dili karayn ama xabadoodu iska soo gaareen ama aan is arkayn si ay u badbaado si xabad joojintu ay u sugnaato waa in ciidamada la kala durkiyaa oo meelo ayan iska soo gaarayn markaasaa wada hadalku uu imaan karaa annagu waxaanu diyaar u ahayn in xabad joojin lagu dhawaaqo waxaanu diyaar u ahayn
annaga de magaalada iyadii baa la duqeynayaayo dadkani waa sidaan hore u sheegay de fahiimo quujo iyo raxmo yar lama oran karo orda oo garowe aale ilaahay hadduu kuu reeyo gurigoodii oo dunsan bayba dhex joogaan oo madfac ku dhacay laakiinse ciidanka soo duulay in lagu cesho meel uusan magaaladan iyo dadkan iyo ciidanka kale uusan waxba ka yeeli karayn arrintaa weeye arrinta ilaa iyo hadda caqabadda ah arrintaa weeye arrinta sidaad arkayseen muuse mar walba uu ku celinaya lahaa hal tallaabo dib laascaanood uga soo bixi mayno ilaa iyo hadda arrintii UN-tu ay soo saartay resolutionka ay ku soo saareen ee ahayd ciidanka Somaliland waa inuu ka baxaa magaalada laascaanood oo uu si dadkan ay amni u helaan ilaa iyo hadda caqabadda hortaagan nabadgelyadii iyo wada hadalkii u arrinka hal su'aal marka su'aasheeda ugu dambaysa waana ka bedelaynaa Axmed Yaasiin baa soo galaya waxaad ka dhawaajisay safarkii lagu tagay Muqdisho iyo hadda Kenya iyo caalamka is afgarad ayaa la kulanteen dhinaca dawladda federaalka Soomaaliya maalin dhaweydna markii faysadii lagu jiray kooda Luulyo calankii buluug ayaa laga taagay laascaanood madaxweyne xasan sheekhna uu khudbadiisa ku sheegay uu yiri markii ugu horeysay calanka buluuga laga istaajiyay maxalliga laascaanood laba su'aal baan rabaa inaan isdul saaro kow maamul cusub baa loo sameynayaa Khaatumo SSC maamulkaasi adiga ma ku jirtaa sameynteedii ma ku jirtaa maamulkaasi ma kala hadleen wafdigii tagay Muqdisho adan ku jirin laakiin wafdigii odayaasha Muqdisho tagay ma kala hadleen xasan sheekh dawladda Soomaaliya bal inooga waran isku xir arinta isbedelkii aad sheegtay oo afgaradka ahaa ka dhaxeeyay wafdigii ka socday laascaanood ama Khaatumo SSC oo Muqdisho tagay oo la kulmay dawladda federaalka dabcan ay ahayd maxaa la yiraahdaa casuumaad ka timid dawladda federaalka isafgaradkaasi ma ku jiray sameynta Khaatumo State SSC kana waran soo dhawaadeen dawladda federaalka mise weli waxay taagan yihiin banaanka bal warbixin balaaran naga sii mahadsanid guleedow waxaa shirkii ay isugu yimaadeen dadka reer SSC Khaatumo go'aamadii ka soo baxay baa waxaa ku jiray inay samayn doonaan oo la samaynayo oo ay ku tashadeen hoggaanka SSC Khaatumo ee Soomaaliya in uu golo siyaasadeed oo 45 xubnood ka kooban uu ka koobnaan doono ilaahay hadduu kuu roon yahay golihii fadhigiisii koowaad berri buu insha allahu tabaaraka wa tacaala uu magaalada laascaanood isugu imaan doonaa hoggaanka SSC Khaatumo wuxuu ka koobnaan doonaa golaha siyaasadda iyo golaha sare ee dhaqanka Khaatumo golaha sare ee dhaqanka Khaatumo arrimaha masiirka ah ilaalintooda iyo ilaahay hadduu kuu roon yahay bay ahaan doonaan iyo la socodka maamulkan adeegayaal bay noqonayaan maamulkuye ciddan loo igmaday inay ku ilaaliyaan hawshii loogu igmaday dadkan in ay midnimadooda nabadgelyadooda bay qaabilsanaan doonaan iyo dhexdhexaadinta beelaha golaha sare ee dhaqanka arrimaha siyaasadda waxaan u dhiibi doonaa oo gacanta ka saari doonaa iyo day to day activity-ga waxaan u dhiibi doonaa golaha siyaasadda oo yeelan doona golaha gudoomiyaha golaha dhexe oo xeer ilaalinta iyo yeelan doona ilaahay hadduu kuu roon yahay noqon doona iyo hoggaan maamuli doona fulinta marka insha allahu tacaala golaha annagu waxaanu noqon doonaa ilaalinta masiiriga iyo si guud laakiinse sidaan haddeer siyaasadda aan noogu cidlaysatay cid baanu u samayn doonaa ciddaasaa maamuli doonta haddii eebayno marka su'aasheeda ciddaas la magacaabayo waxay dawladda federaalka Soomaaliya intaan safarku tegin bay si toosa u baahisay oo wasiirka arrimaha gudaha khayr Allah siiye iyo madaxweynuhu ay sheegeen dadkan inay xaq leeyihiin go'aanka ay gaareenna dastuuri uu yahay ayna aqbali doonaan kulana shaqayn doonaan colaadan haysay baa keentay iyo maalin walba dagaalka nagu dhacayay in aanu waqti u weyno samaynta maamulkii laakiinse uu soo bixi doonaa waana la samayn doonaa
fadhigiisina sidaan kuu sheegay xubnihii la igmaday berri bay isu imaan doonaan muddo insha allahu tacaala way qaadanaysaa xeerarka iyo in la abruuf gareeyo iyo waxa ay ku shaqayn doonaan iyo heshiiskii bulsho iyo awood qaybsigii hase yeeshee waa barnaamij soo gabagaboobay haddeer maya intaasaan rabay inaan caddaysa aad baa u mahadsantahay soo dhow Axmed Yaasiin waa mahadsantahay garaad su'aal waxaan doonayaa fudud inaan ku weydiiyo marka ugu horeysa Somaliland iyo idinka waxa wada hadallo ah idin dhaxeeyo ma jiraan waqtigan xaadirka ah halka ma maqal igu celi wax wada hadallo ah Somaliland iyo SSC u dhaxeeyo ma jiraan waqtigan xaadirka ah may si toosan uma wada hadallo cid dhexdhexaada oo na wada hadal siinayso haddeer taagan oo aan ognahayna ma ay jirto okay waxaan maqalnay Somaliland inay tiraaday waan xaraga dagaalamayna maalin dhaweeto xaraga dagaalankaas idinku ma xaraga dagaalamaysan idinkuna mise wuxuu ahaa xaraga dagaalamka dhinacooda buu ka socday Axmed Yaasiin oo khayr Allah ku siiyay horta nuux taani inuu ka xishooday ahayd kelmadda xaraga dagaalan waxaa lahaa garaacdisaa garaad soofe inuu isagu kelmad kale la yimaado oo uu hal abuur la yimaaday ahayde inuu tabalcaaraysto inay qoladani meesha kaga qaaday Soomaaliland inay kaga qaadeen in hal abuur la imaan karay inuu taliyo u noqdo rantii way ahayd laakiinse annaga xaraga dagaalameynay oo rantii de iyadoo guryaha iyaga la duminayo oo madaafiic la dhacayo oo lagu soo duulay baanu haddana waxaanu ku koobaynay maamulka anagoo og in beeluhu ay ciidan soo humayaan baanu hoosay ula hadlayno lahayn warde waa garanaynaa maamuladu ma waayaan koofiyad bacalayaal ay dirsadaan qoladiina culimada iyo salaadiintiihi dee xaajada gacmaha ka laabanina kor baanu u qaylin karayn ilaahay hadduu kuu roon yahay ma garanayo maamulka Somaliland bahalcuunnimada uu samayn lahaa marka uu dumiyey guryihii masaajidadii cisbitaaladii waxa ay samayn lahaayeen ka dhinnaa waxashnimada ka dhimnayd u harsanayd ee uu samayn doon lahaa yaanba garan lahay laakiinse waxaan u malaynayaa ereyguusan garanayni micnihiisuusan midhaa dhuuxine bal waynu arki doonnaa hadduu markii hore xaraga dagaalamayey waxa uu sameeyo markuusan xaraga dagaalamay waa gartay waxaa leedahay perjury buu commit gareeyey aad iyo aad okay aan u gudubno waxyaabaha adiga ku saabsan siyaasiyiinka ku saabsan oday dhaqameedka waxaan arkaynaa oday dhaqameedyo dad isku sheegay oday dhaqameed oo ka tegay muqdisho oo tegay mataqaanaa haddii hargeysa tegay oo ay madaxdii iyo mataqaanaa adna iyo dad badan ay la kulmeen waxaa la waday arrin irir Soomaali la yiraahdo waxa kaleeto oo la waday arrin maalin dhaweeto oday dhaqameedyo aan xushmad badan u hayno oo waday arrin ku saabsan mataqaanaa haddii Ilaahay ku roon yahay maxaa la oran jiray anada qabiilkii kaleeto ay waday dir arrin dir ku saabsan oo ay dhahayeen mataqaanaa inta shireen ay ka khudbadeen dir baa sameeya waxaa soo socda shir direed dadkan oo dhan waxaa loo ururinayay sidii ka muuqatay hadaladii ka muuqday iyadoo la leeyahay huwan baa nagu soo duushay oo timid naga qaadatay Somaliland hortay Somaliland burburiso ma wax haba yaraatee qabiilaysan oo daarood ah ayaa la dagaalamaya mataqaanaa isaaq oo qabiil yar ah siday iyagu leeyihiin arrintaasna maxaad u aragtaa maxayse u dhici weysay irir Soomaali iyo mataqaanaa in ay u dagaalamaan ciisaha ku dhimanaya Anfar region Anfar iyo ciise dhexdooda ku soo dhawo Axmed Yaasiin khayr Allah ku siiye rantii waa tii u dambeysay baa tusaale wacan cidda ku dhimanaysay lafa ciise haddiiba la leeyahay ciise waa dir waxaa u badnaa absame iyo daarood
marka colaad ka dhaxaysa dib iyo daarood meesha ma taalo runtii ceeb bayna ku ahayd reer Sheekh Isxaaq in hoolay iyo niman xeeladooda ku xamaalanaya inay Hargeysa intay yimaadaan yiraahdaan annagoo irir Soomaaliya baanu reer Sheekh Isxaaq ka celinaynaa daarood runtii ceeb bay ahayd waa magaxumo waa maamulkan fashilmay waa neef gowracanigeeda kama waabto waa uga tacsiyadaynaynaa runtii dadka wanaagsan sida xun loola dhaqmay ilaahay hadduu kuu roodo yahay magacoodii dhulka la jiidayo waxa keenayana waxa weyn reer Sheekh Isxaaq iyagaa ka gaabsaday in ay maamulkooda saxaan in ay qabtaan in ay yiraahdaan waxaan annaga nuguma matashid inay ka baqaan oo yiraahdaan dadka idin diidaya ama maamulka idin xiraya haddii aad xaq sheegtaan oo tiraadaan dadkan guryahooda uga soo bax marka dadka wanaagsan ee aamusaan ayaa xumaantu tarantaa welina jaanis bay leeyihiin in ay ka hadlaan haddii kale maalin kasta magac xumada iyo ceebta iyo gudnimadaas ku dhacaysa hadday ka hadlaanna dad gobay noqonayaan oo waxaan lagu xoqayo ayaan ahayna way iska reebayaan dulmigan magacooda lagu sameynayana way qabanayaan culimo iyo ilaahdu kale codkarba marka nasiib darrada ku dhacday maamulkani intuu fashilmay oo dhaqaalahoodii cunay oo xidhxidhay oo bahdilay oo yiri wax aan jirin oo la yiraahdo dawladnimo iyo ictiraaf baanu keenaynaa in uu ku baabi'iyo reer Sheekh Isxaaq aad iyo aad baanu uga xunnahay intooda wanaagsanina waa ay diidan tahay laakiinse waxay ka baqayaan inay ka hadlaan taasina micnaheedu waxa weeye xumaanta in la reebo afwan garaad yaa dagaalamaya yaa dagaalkan uu ka dhaxeeya waxaan maqlaynay haddii la fiiriyo Somaliland waxaad la dagaalamaysan Muuse Biixi mise Isaaq baad la dagaalamaysan mise yaa la dagaalamaya yaa dagaalkan ka dhaxeeya horta Axmed Yaasiinow maamulka Soomaalidii markii ay burburtay dalkii uu burburay waxaa loo kala jajabay beel walbaana maamul bay samaysatay beeshii maamulkeedii annagu haddeer waxaanu samaynaynaa SSC Khaatumo SSC Khaatumo xumaanta ay geysato anaa ka mas'uula haddii aan ka hadli waayo haddii aan qaban waayo ilaahay hadduu kuu roon yahay waxa dadkaygu ay samaynayaan reer Sheekh Isxaaq waxay samaysteen maamulka Somaliland la yiraahdo haddee cidda matalaysaa waa xubno la doortay ee dhaqankii iyo odayaashii cidda go'aan kale ma aha ee tiri ha lagu duulo reer SSC Khaatumo hase yeeshee cidda duulaysaa waa wiilashoodii kuwan amarka bixinaya waa wiilashoodii kuwa madaafiicda la dhacaya magaalada waa wiilashoodii kuwa ilaahay hadduu kuu roon yahay iska duubaya iyagoo madaafiic la dhacaya magaalo dad darisi ay leeyihiin waa wiilashoodii marka ilaahay hadduu kuu roon yahay dee waa la oran karaa waa magacii siyaasadda ee reer Sheekh Isxaaq waa Somaliland marka waa la oran karaa reer Isxaaq iyo waxa isdilaya iyo daarood su'aasha meesha taalan waxa weeye garxaajis intuu shiray oo banaanka soo istaagay ayuu yiraahday waan dagaalka laascaanood waan ka soo horjeednaa suldaamad badan oo kale sidoo kale way u hadleen marka garxaajis ma ku jiraa reer Isxaaq dagaalamaya aad baan waana u hambaliyeynay waanu ku celinaynaa garxaajis si gobonnimo leh oo sharaf leh oo ku dhac leh iyo intay shireen yiraahdeen dagaalkaasi waa khalad waanu ka soo horjeedaa xitaa wiilka garxaajis aanu qabana nooguma jiro baalkii in la soo khalday baan u aragnaa maantana iyagu midida daabkeeda ma hayaan Soomaalidu way isjifaysaa cidda maanta talada haysa reer Sheekh Isxaaq waa habar awal iyo habar jeclo saddexda nin meesha go'aankooda uu ka go'o waa Muuse Biixi waa Saleebaan Gaal waa Maxamed Kaahin waa inta jeegaanta la isku yiraahdo
inta maanta odayaashooda oo ay aamusan yihiin ee ay ku raacsan yihiinna waa intaa soo oday dhaqameedka maxaad ka rabtaa oday dhaqameedka Somaliland waa maxay fariinta u jeedo oday dhaqameedka Somaliland waa inta soo baxayna dhinaca Somaliland waxaanu ka rabnaa waliba beelaha habar awal iyo habar jeclo iyo ilaahay hadduu kuu roon yahay aanu ka rabnaa iyo arab in ay caddeeyaan wiilashoodu inay dulmi ku duminayaan laascaanood inay dulmi ku dilayaan dadka reer SSC inay ilaahay hadduu kuu roon yahay dulmi ku joogaan dadka gobollada SSC khaatumo inay yiraahdaan bari baanu ka nahay wiilka gooja cadde ku xanliban maanta ee ku jira ee ku silicsan suldaankiisii markuu maqlo oo leh waxa aad ku dagaalamaysaa waa dulmi waxa la arkaa inuu go'aan qaato laakiinse marka suldaankiisii ku aamusan yahay inuu raalli ka yahay uu arkayaa beesha danaheedii uu difaacayo inaan hadalkaaga wax yar ka saxan soo doonaya waxa tiri mar wax yar ka hor daarood iyo isaaq baa dagaalamaya miya bay gaari doontaa hadday sidan ku sii socoto way gaari doontaa laakiin hadda saas maaha waaye